halkan waa tilmaan TV akhyaarta qadarinta qiimaha mudan ka soo gudbinayno warar kala duwan barnaamijyo iyo waraysiyo sida la socotiin mas'uuliyiin badan ayaa waxay iska casineen xilalkay u hayeen dowlad deegaanka waxaa kamid ah mas'uuliyiintaas Mahad Xasan Jidaal oo ahaan jiray madaxa xafiiska ka hortagga iyo masiibooyinka waxaa kaloo is casilay Xanad Maxamed Gaashaan oo ahaan jiray gudoomiyaha degmada Dhanaan waxaa kaloo is casilay Mubaarak Cumar Faarax oo ahaan jiray hogaankii hore ee nabadgelyada iyo cadaaladda dowlad deegaanka haddana hayay xilka ku xigeenka madaxa xafiiseedka beeraha waxaa kaloo is casilay Maxamed Jeefaad oo maareeyaha wakaaladda dakhliga ee degmada Dhanaan gobolka Qorraxi haddaba waxaa noo soo gashay inaan waxaa nala soo xiriiray warbaahinta Tilmaan TV Mahad Xasan Jidaal oo kamid ah mas'uuliyiinta is casilay oo aan la xiriirnay ayaa waxaan ku bilownaa waraysiga sidan nala dhageysta waraysigan Tilmaan TV mar walba Tilmaan TV wuxuu ku hadlaa codka dadkaan codka lahayn ee dowlad deegaanka iyo Soomaaliyada Tilmaan TV wuxuu idin soo gudbiyaa barnaamijyo kala duwan oo xiiso leh waraysigan oo aad ka ogaan doontiin xogta muhiimka ah isu casilay iyo wixii ku kalifisay casilkiisa Mahad ka dhageyso halkan waraysigan waxaan ku bilownay sidan waxaan la soconaa oo Facebook soo gelisay in iska cansishay xilka xafiiska aad ka ahayd xafiiska aad u ahayd muxuu ahaa madaxa u ahayd waxaad noo sharaxdaa horta intaana taa u gelin waxbarashadaadii iyo deegaanka shaqooyinka kale kasoo qabatay loogu taas u sharax dadka ku dhageysanaya magacaygu waa Mahad Xasan Jidaal waxbarashada dugsiga hoose kadib waxaan kusoo qaatay magaalada Fiiq halkaasoo kusoo barbaaray kadib waxaan dugsiga sare ku qaatay iskuulka barbaaratiga Jigjiga halkaasoo fasalka 12aad ka qalinjabiyey una gudbay jaamacadda Tishi University anigoo ka bartay cilmiga dhaqaalaha okay good imise sanad u shaqeynaysay xafiiskan ka hortagga iyo masiibooyinka xafiiska hadda aan ka talin waxaan ka shaqeeyay muddo 8 bilood marka shaqada ka horeysana maxaad midaas qabanaysa shaqadii ka horeysa waxaan ahaa shaqaale dowladeed waxaan muddo 7 sano ka soo shaqeeyay xafiiska maaliyadda ee degmada Dhuxul halkaasoo lagu baraa madaxa xisaabaadka kahor waxaan ka soo shaqeeyay xafiiska maaliyadda ee degmada Fiiq shaqooyinkaas ayuu horreeyay marka waxaa tahay nin experience leh oo shaqooyin badan deegaanka ka soo qabtay aqoon-yahana ah maxaa kugu kalifay inaad xafiiska iska cajisho adiga oo xilka laga qaadin maxaa kugu ka dhaliyay arrintaas arrinka waxay u kaliyay waxaan arkay cadaaladii oo baalmaray habkii maamulka wanaagsanaa iyo maaragta maareyntii oo baalmaray iyadoo maaragta ay isu bedeshay gulweysi islamarkaana xoog batay musuq iyo eex iyo qabyaalad iyo mijaalays iyadoo shaqadii lagu wado marka maamulkiisa waa inaan shaqada wado maamulkaan la shaqeynayo oo ahaa maamul aad iyo aad u tayo xun islamarkaana aan nidaamkii loogu talagalay aan ku shaqeynin baa shaqada daraaga waday maamulkaasi marka ma maamulka gobolka degmada Dhanaan miya mise waa maamulka dowlad deegaanka miya maamulka maamulka deegaanka ayaa dhinacatay xubida ka maraysan ilaa maaragtay kaaweeya ugu sarreeya laakiin dhibaatada ugu badan waxay ka jirtay dhinaca degmada maamulka la shaqeynayay iyo gudoomiyaha gobolka oo maaragtay faragelin badan ku haya maamulka degmada Dhanaan oo gudoomiyihii iga horreeyayba ee Xanad Gaashaan wasqo isaga ajilay xilka saa daraadeed hadda mas'uuliyiin badan baa is casishay intaada is casilin ka hor ma la xiriidhay dowlad deegaanka iyo madaxda kaa sarreysa ilaa xafiis baa ka sarreeya oo adigu cabashada u gudbisiin ma la xiriidhay oo dhibaatooyinkan uu gudoomiyuhu ku haya Dhanaan degmada Dhanaan iyo mas'uuliyiinta kale ee tiri waa la shaqeeya musuqmaasuq iyo eexda aad kula shaqeyn weyday cabashadaa ma u gudbisay maxaase jawaab ka heshay waan u gudbiyey cabashadaas waxaan usoo gudbiyey madaxa xarunta dhexe waxaan usoo gudbiyey xafiiska gobolka waxaan usoo gudbiyey madaxtooyada intuu war maaragtay ay haba yaraatee jawaabayga sii ma jirto cabashada intii aan garanayo gudoomiyaha magaciisa saddexan noo sheeg gudoomiyaha Dhanaan Maxamuud Maxamed Gaashaan balida imisoo xilka hay Dhanaan isla xilka ku hay muddo 8 bilood halis baa inuu horreeyay oo xilka ka tagay marka waa dadkii cusbaan uu magacaabay madaxweynaha Mustafa Cumar uu magacaabay miyaa deegaanka mise waxa weeyaan waa dowladii hore maya wuxuu ahaa dadkii dhammaantana waxaan ahayn dadkii hore dadkii cusbaan aan ahayn xukuumadda lagu bilaabay
maxaa kuu kalifay inaad marka aad casilaadaada facebooka soo geliso mase casilaadaada ma u gudbisay dowladda intaada facebooka soo gelinin intaada facebooka soo gelinin kahor waan u gudbiyey maalin kahor baan u gudbiyey anigoo ku socodsiiyey xafiiska gobolka ee maaragtay toos iyo xukuma warqadiisa casilaada u gudbiyey kadib ayaan official ahaan usoo geliyey facebooka qolka bata intamid aqulahay facebooka wax ciidan ma kula soo sameeyana ma ku weydiiyeen sababta iscasilidaada ilaa hadda waxay lamay soo samaynin laakiin inay aqbaleen ayaan ku arkay sida u aragtaa marka dowladdan cusub ee hogaaminaya Mustafa Cumar markii horeeta ay waddanka la wareegeen ku dhawaaqay sinaan cadaalad iyo dimuqraadiyad sida u aragtaa hadda se waxay socdaan xaaladda deegaanka waxaan ahaa dadkii aadka usoo dhaweeyey islamarkaana uu aqalteynayay madaxweynaha cusub markii uu baarlamaanka ka horjeediyey 12 qodob ee maanta uu sheegayay ahaayeen cadaalad iyo sinaan iyo horumar iyo maamul waaran la heli doono islamarkaana loo gudbi doono eedad iyo qabyaaladii ayaa waxaan ahaa dadkii ka midka ahaa aad iyo aad ugu haweynaa jegada hadda anuga ka tegayna waxaa jega aad u yar marka loo eego jegooyinkii hore hayn jirin waxaana ku ganacsanaa inuu madaxweyne yahay madaxweynaha loo shaqayn karo xitaa haddii waardiye kugu qasabto madaxweyne aad u fiican balse laakiin madaxweynaha waxaa la shaqaynaya dad ku hareeraysan sidii madaxweynihii hore cabdi maxamuud cumar oo kale talada siinaya tala samaysiinaya marka waxaan u arkay madaxweynuhu inuusan maaragtay sidii loogu talagalay amaankii uu sheegay inuu isaga laftigiisu baalmaseeya baan arkaa wax ciidan ma la samayso dacwadaada muu gudbiyey madaxweynaha weli ilaa hadda fursad ma helin laakiin waan isku dayay inaan taleefonkiisaan eego ilaa hadda ma helin waan kula jooga inaan helo waan u sheego hadda marka la eego xukuumaddii hore ee cabdi maxamuud cumar iyo tani wax saasoo farqa u dhexeeya ma jiro laakiin farqa u dhexeeya aan garan karna waxaa weeye xagga saxaafadda horta iyo maaragtay dadka waan caburintii faraha badnay laga daayey inkastoo dadka qaarkii ay sheeganayaan laakiin anu aanan arag caburintii faraha badnay dadka laga daayey laakiin uu suqi xukuumaddii hore waxay sheegaysaa oo maaragtay ay sheegayaan inay ka tegeen lacaga badan oo bangiga ku jira lacagii bangiga ku jira ay ka tegeen in la isticmaalay kadib markii xukuumaddan ay isticmaashay ay sheegeen in dadkii tegay ay maaragtay baxsaday ay lacagta isticmaaleen taana waxaan leeyahay xafiiskii anti corruption commissionka iyo anti dowlkii qaranku deegaanka uu lahaa ma madax bannaan xafiiskii maaliyadda hirdiga iyo xafiiskii madaxtooyada midna muusan cadaynin waxaa ilaahay ugu yimaadeen xafiisyada hirdiga ma jiraan marka meeshaas wax xisaab xidhan ma dhicin marka halkaas waxaa ka muuqata in hanti badan lagu dhunsaday halkan waxaa ka muuqata in maamulka cusub ee yimid waa hanti badan ku dhunsaday ilaa hadda lama cadaynin xafiiska xelaalinta guud uu sheegay marar badan ku socday laakiin lama cadaynin musuqa intuu leekaa iyo maaragtay hantidii ay dadkii tegin la baxsadeen balse laakiin hantidii dadkii baxsaday iyo maaragtay qaabkii ay ahayd iyo lacag akawka lagu yimid lama shaacin right haddaba tallaabada labaad qaasa maadaama xilka iska casishay tallaabada labaad qaasa maxay tahay hadda tallaabada labaad qaadaya waxay tahay dee inaad noqdo nin bulshada u horeeyo rayidka islamarkaana dee xukuumaddu wixii ay qalociso maaragtay ay qalociso kasoo horjeeda si aan u sax xukuumadda maamulka degmada dhanaan musuqmaasuqyada aad ku eedeynayso ay sameeyeen maxaa ka mid a waxaa ka mid ah lacagii loogu talagalay inaa ku shaqeeyo xafiisyada ku shaqeeyaan shakhsiyadda gacantooda ku dhacdaa waxaa ka mid ah lacagta keliya la qaata mushaarka dowladdu kabitaan ilaa hadda sanadkan joogna dhanaan wax kabitaan la fuliyey male waxyaabihii loogu talagalay ee maaragtay in lagu hawlgalo ama shidaalka ha noqoto ama barnaamij shaqaale ha noqoto waxba inaad la qiimo jirto gudahaanba meeshaas waxaa ka jirta masiibo ku habsato dhanka dhaqaalaha ka jira waxayna ku timid maamul xumo saad sheegtay maamul xumay ku timid iyo maarayn la-aan xagga maamulka waxaa kaloo iyadana la sheegaya xagga ammaanka ama nabadgelyada in dad badan dhibaato loogu geysta dhanaan arrinta maxaad kala socotaa iyada hadda muddadii hadda joogay wax nabadgelya darro ka jirtay degmadooda jirin laakiin markii maamulka la dhisay ayaa waxaa jira khilaaf ka dhashay laba galoo degan degmada dhanaan oo maaragtay isku hayay maaragtay maamulka laakiin wax dhibaato oo hadda sheegayo naf iyo maal ah oo ka dhacay degmada ma jiro maxaad codsi u diraysaa marka dowlad deegaanka waxaan fariin u dirayaa oo aan u wareejinaya madaxweynaha iyo xukuumadda federaalka labadaba in degmada dhanaan maamulkeeda tallaabo sharci waafaqsan laga qaado islamarkaana la qiimeeyo maamulka halkaa ka jira sidoo kale waxaan iyadana aan leeyahay in maamulka gobolka ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka maxamed aadan afrow isagoo laftarkiisa uu dhibaatada qayb ka yahay isagana maaragtay qiimeyn lagu sameeyo lana eego maaragtay faragelinta ugu haya degmooyinka gobolka sidoo kale xukuumadda waxaan ugu baaqayaa in
maarka la isku xamarayo in iyadana farqiyo lagu sameeyo sidoo kale hay'adda xakamaynta musuqa iyo hadda dhowrka qaranku waa madax bannaanaada soo saaraan maaragtay cadaymo dhaba oo lagu kalsoonaan karo. mahad waxaan la soconaa shalay inuu heshiis dhex maray dowladda Oromiya iyo dowlad deegaanka Soomaalida heshiiskaasi sideed u aragtaa mase kula tahay inuu heshiiskaasi uu hirgeli doono mahad waxaan la soconaa shalay inuu heshiis dhex maray dowladda Oromiya iyo dowlad deegaanka Soomaalida madaxweynaha Mustafa Umar oo warbaahinta la hadlayay ayaa wuxuu u muuqatay inuu eeda dhinaca Soomaalida saarayo ciidankii New Booliska dowladda hore marna umuuna soo jeedinin eed dowladda Oromiya oo lama magarsa hogaaminay oo inuu la socono inay shacab badan lagu xasuuqay wadaay tuli guleed haddaba ma kula tahay heshiiskan inuu hirgeliyo maadaama aan meeshii dhibaatada ka timid lama magarsa iyo dowladda Oromiya aan dhaliil loo jeedinin shacabka dowlad deegaanka Soomaalida waxaa fariin u dirayaa inay nabadgelyo ilaashadaan isla markaana horumarka shaqeeyaan xukuumaddana ay la xisaabtamaan heerka ay joogto xukuumadda ilaa heer gobole heer degmo heer gobol iyo heer kaleda xukuumadda lala xisaabtamo oo lagu xisaabtamo miisaaniyadkii 2011 waxa qabsoomay maadaama abaaro badan lagu jiro taasaa maaragtay fariin u dirayaa iyaga laftirkooda ay maaragtay isaafiyaan isugu kalsoonaadaan dad wada jira oo maaragtay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay gacanta isqabsadaan waana baxo qabiilka iyo maaragtay kala qaybqaybsanaanta ilaa iyo intii dowladdan cusub ay timid waxay dadku sheegayaan in qabiilkii uu 100% gaaray oo qabiiladu ay ku shirayaan meelo badan Dirdaba Jigjiga iyo meelo kaleeto ilaa adsaba lagu shirayo maxay kula tahay arrintan soo celisay hadda qabiilkan iyo in dib talaabo loogu qaado xilligii leego maxaa asalka ku haysaa kula tahay arrintaas xukuumadda xagga qabiilka marka la eego waxay noqonaysaa xukuumaddii daahiriya tanina ismaartay xagga qabiilka islaamiyeen laakiin qabiilka waxaa soo burburiyaa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo wadajir iyo wada noolaansho dunya marka xukuumaddu ilaa qabaa'ilka waxaan soo ismoolisiiyaan waxaan u malayn karaa markii maamulada degmooyinka kelilka la dhisay ayaa qaab qabiil lagu dhisay qaab shakhsiya lagu dhiso xubnimo xisbi lagu soo doorto ayaa ka wanaagsanay baan leeyahay aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Mahad Xasan Jidaal oo ahaan jiray madaxa xafiiska ka hortagga iyo masiibooyinka dalkiisa wuxuu u yahay uu yahay nin raba inuu maartay dowlad deegaanka ay nabad horumar wadajir iyo sinaan iyo cadaalad ay ka dhacdo waxaan kaloo iyadana ugu baaqaynaa dowlad deegaanka haddii ay rabto inay ka jawaabaan hadalkaasi Mahad Xasan ama maamulka gobolka degmada Dhanaan ay ka jawaabaan Mahad Xasan inaan ku macsuumayno Tilmaan TV inaan la soo xiriiraan oo iyaga waraysi ka qaadno Mahad Xasan Jidaal aad baan kaga mahadnaqayaa waraysiga aad siisay warbaahinta Tilmaan TV. Salaam Allah.